قلعة ميديا نيوز. قلعة ميديا نيوز. بسم الله الرحمن الرحيم. كل وعنا wanaagsan ku soo dhawaada daawadayaal warka galcad media qodobada ku daawa doontaan waxa ugu dooran laftigareen oo xurriyadii ka qaaday xildhibaanada maamulka koonfur galbeed saraakiil ku qabiila Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo xilaalkii looga qaaday maxadu booqateen guriga Sheekh Shariif Sheekh Axmed xayiraadii Kismaayo ay ka dhalatay arrimo khatar leh safiirka Mareykanka iyo madaxweyne Waaro kulan yeeshay dibadbaxyo ka dhan ah Al-Siisi oo ka bilowday Masar Mareykanka oo xayiraad saaray Soomaali uu ku jira Sheekh Caana warka dibadda daawadayaal waxaa ka mid ah Iiraan oo sii deysay markaba ay leedahay dowladda Britain hagaag haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho war ku saabsan akhbaaraadka caalamka taariikhda waxay tahay 28 bisha 9 Sebtembar 2019 intaad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhawaada daawadayaal قلعة ميديا. قلعة ميديا نيوز. قلعة ميديا نيوز. قلعة ميديا نيوز. amar ka soo baxay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin ayaa xilalka looga qaaday taliyaal ka tirsan hay'adda nabad sugidda kuna beel ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed amar ka soo baxay taliyaha hay'adda nabad sugidda Soomaaliya Fahad Yaasiin ayaa xilalka looga qaaday Korneel Cali Qadar iyo Korneel Ibraahim Macalin oo lagu eedeeyay inay gurigiisa ku booqdeen madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed xilka qaadista saraakiishan wax digniinaha kama horeyna laguma sii sheegin inay dambi tahay in la booqdo madaxweyne hore Korneel Cali Qadar ayaa ahaa taliyaha hoggaanka arrimaha dibadda ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka halka Korneel Ibraahim Macalin oo ahaa taliyaha sirdoonka caasimadda Muqdisho kaliya waxaa sida la sheegay xilka qaadista saraakiisha Fahad Yaasiin uu cuskaday in ay booqdeen guriga uu Muqdisho ka degan yahay madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed maalmo ka horna dowladda Soomaaliya ay ka hor istaagtay in uu aado magaalada Kismaayo isaga iyo wafdi la socday si uga qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo dowladda dagaal siyaasadeed ay kula jirto xayiraadii dowladda Soomaaliya ay ku saameysay Sheekh Shariif ayaa waxa ka dhalatay xaalad jahwareer ah oo Muqdisho ka taagan xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ayaa lagu amray inaysan wax mooshin ka keeni karin xukuumadda Cabdicasiis Laftigareen kadib kulan la iskugu yeeray madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen oo hoyga uu ka degan yahay magaalada Baydhabo ku casuumay xildhibaanada maamulkaasi ayaa ku amray inay shaqadooda si ku meel gaar ah u sii wataan maadaama uu dhamaaday waqti xiloodkoodii muddadaasna aysan isku howli karin mooshin ka dhan ah xukuumadda hogaamiyo xildhibaanada maamulka koonfur galbeed oo uu dhamaaday waqti xilhintooda ayaa muddooyinkii dambe ku howlanaa raadinta in loo sameeyo waqti kordhin waxaana ololaha lagu raadinayo waqti kordhintooda hormuud ka ah gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Cabdulqaadir Shariif Sheekh Maye xukuumadda Soomaaliya markii horeba meesha geysatay Cabdicasiis Laftigareen oo ah madaxweynaha maamulkaas ayaa la sheegay inay ka soo horjeesatay in waqti kordhin loo sameeyo xildhibaanada maamulkaas sida ay warbaahintu u xaqiijiyeen qaar ka mid ah xildhibaanada tagay guriga Laftigareen xildhibaanada ayaa waxay noo sheegeen in markii hore ay dooranayeen Laftigareen ay xukuumadda u ballan qaaday in iyaga waqti kordhin loo sameeyo aan la soo xuli doonin xildhibaanan kale ballantaas oo hadda muuqata mid looga baxay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed baa oo casuumad ah noo sameeyay 149 amba wasiir ha ahaado amba yaan ahaanin wixii xildhibaan ahaay oo dowlad goboleedka koonfur galbeed ka mahay maanta madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed casuumad u sameeyay madaxweynihii dowlad goboleedka baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ani iyo guddoonka 2 mar 3 maraan waxaan u weydiinay extension waa u soo waynay waan ku guuleysan waynay ilaa maxaad ku guuleysan weydeen waxa lagu guuleysan waay 2 mar 3 mar aan dowladda dhexe la fadhiisanay marka waxaa loo soo waayay extension in baarlamaankan loo helo
oo waqti kordhin in loo sameeyo waqti kordhin in loo sameeyo hataa 6 bilood 7 bilood hal sano markaan raadinay weliba warka ugu dambeeyay waxaan ku darnay dhaheen in la waafajiyo xukuumadda iyo baarlamaanka marka bacdi shidda tacab waxaa la yidhi waa loo soo waayey labaarada koonfur galbeed oo aan jeclahay oo ay doorteen waxaan jeclahay in ninba nasiibkiisa in baarlamaan lasoo xuli doono intaas aan lasoo ogeysiiyey baarlamaanka koonfur galbeed nin walba odagiisa dhaqanka iyo qabiilkiis inuu wax ka weydiistaan ka codsanaa aan lasoo jeeday marka 2 mar guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha intaa israaceen ay nimankaas u tageen waxay yidhaahdeen waxaan annagiyo baarlamaankeyna iyo xukuumaddeyna waa is ogolnahay in oo xukuumadda iyo baarlamaanka laswaafijaan codsanaynaa kiina waxaa la yidhi beesha caalamkana waa diiday dowladda dhexna waa soo diiday marka toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa madaxweyne laftigaran waxa uu baydhabo ka waday kulamo looga arinsanayo sida loo soo xuli lahaa xildhibaano cusub kulamadaas oo uu la yeelinayo odayaasha dhaqanka ee beelaha dega deegaanada uu ka arrimiyay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. maamulka Jubbaland ayaa wuxuu si kulul uga hadlay xayiraadda dhinaca duulimaadyada oo wali saaran magaalada Kismaayo kaas oo ay saartay dowladda federaalka Soomaaliya. wasiirka wasaaradda dastuurka maamulka Jubbaland ayaa sheegay in xannibaadda duulimaadyada Jubbaland la saaray ay tahay mid baalmarsan dastuurka dalka isla markaana saameyn weyn uu ku yeeshay shacabka ku nool deegaanada uu ka kooban yahay dowlad goboleedkaasi. waxa uu sheegay wasiirka in qof walba oo Soomaaliya oo dastuurka siinayo inuu tagi karo meesha uu hase yeeshee uu sheegay inaysan garan karin dhibaatada intaasi leeg ay dowladda federaalka u geysanayso dadka Jubbaland. dhibaatooyin dhinaca caafimaadka ayuu sheegay wasiirka inay ka dhalatay xayiraadda dhinaca duulimaadka ay lagu soo rogay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. sidoo kale waxa uu sheegay wasiirka inay jiraan dad tacbaan ah Kismaayona wax looga qaban lahayahay balse aysan jirin diyaarad ka soo qaadi karta magaalada Kismaayo si ay Muqdisho soo gaarsiiso maadaama uu xayiraad saaray yahay tagista garoonkaasi. qaadanaya dhacday hawada Soomaaliya oo ay dowladda federaalka ku xalibtay shacabkeegan oo reer Jubbaland oo dhibaatada inta leeg loo geystana runtii xanuunkaas inta leegna wala qaadanayna waxa leenahay qodobkan ee Soomaaliya ee dowladda federaalka Soomaaliya ee hawada ku xalibtay runtii ma ahan qodob dastuuri ah qofka muwaadinka waxa uu leeyahay qodobka 21 uu sheegaya qofka muwaadinka Soomaaliyeed inuu xaq u leeyahay inuu socdaali karo meesha doon aadi karayo inuu movement sameyn karo oo dhaqdhaqaaqiisa socdeed yaa uu siinaya xaquuq dastuuri u siinaya qodobka 12aad waay marka maanta in la yiraahdo oo asagoo qofka muwaadinka xaq u leh oo dastuurkan marka horena bulshadu ka yimid haddana qodobka bulshada shalay ka yimid oo 12aad oo xaq u lahaa inuu qofka muwaadinka socdaalo ma garan kara maanta marka dowladda federaalka Soomaaliya inay qofka muwaadinka ahaa inay xanibto dhibaato inta la u geysato oo haddana runtii kii ganacsi ah maanta socdaali karin oo xaq u lahayn kan caafimaadka maanta xamar u tagay jiray ama ka Kismaayo caafimaad u imaan jiray aan maanta bixi karin. banaanbaxyo waaweyn ayaa mar kale maanta ka dhacay dalka Masar iyadoo dad badan oo cariisan ay iskugu soo baxeen wadooyinka magaalada Qaahira ee qaar ka mid ah magaalooyinka dalka Masar. dibadbaxyadan muddo 2 toddobaad ah ka dhacay Masar ayaa sii xoogeystay kadib markii ganacsado u dhashay dalkaas ahna jila uu ku baaqay isu soo bax ay 1 milyan oo qof ka qayb galaan oo looga soo jeedo madaxweyne Cabdifataax Siisi. booliska Masar ayaa awood xoogan muujiyay iyagoo xiray albaabada laga gala fagaaraha Tahriir si ay uga hortagaan dibadbaxyaasha. kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sheegay in ka badan 1,000 qof loo xiray banaanbaxyadii toddobaadkii. madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa la kulmay safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya Donald Yamamoto iyagoo ka wada hadlay arrimaha amniga, mashaariicda iyo maalgashiga iyo diyaargarowga shirka Somali Partnership Forum oo horaanta bishan Oktoobar ka furmaya Muqdisho. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa booqday safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay magaalada Muqdisho isagoo halkaasi kula kulmay safiirka Mareykanka u fadhiya Muqdisho. kulanka ayaa waxay labada dhinac uga wada hadleen intuu socday arrimaha kamid ahaayeen amniga, mashaariicda iyo maalgashiga u diyaargarowga shirka Somali Partnership Forum oo bisha Oktoobar ka furmaya Muqdisho. safiirka Mareykanka Ambassador Donald Yamamoto ayaa u ballan qaaday in maamulka Hirshabelle uu kala shaqeyn doono arrimaha amniga iyo dardargelinta mashaariicda iyo maalgashiga lagu sameeyo deegaanada uu ka kooban yahay maamulkaasi.
dowladda Mareykanka ayaa xayiraad ku soo rogtay dhowr qof oo Soomaali Kenyaan ah iyo qaar kale oo Soomaali ah sabab la xiriira inay taageeraan kooxaha argagixisada. waaxda maaliyadda Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay inay la wareegi doonto hantida dadkan isla markaana ka mamnuucday dalka Mareykanka inay wax xiriir maaliyadeed la sameeyaan shakhsiyaadkan. liiska dadka la xireeya waxaa ku jira Sheekh caanka ah Sheekh Xasan Xuseen Aadan, waxaana sidoo kale ka mid ah Sheekh Xasan Cumar Xasan, Mahad Cumar iyo Xasan Mahdi, dadkaanu dhammaantood Soomaali Kenyaan ah. waxaa sidoo kale liiska ku jira Cabdi Fataax Abuukar Cabdi oo loo yaqaan Muhaajir Muuse oo ah muwaadin Soomaaliyeed oo degan magaalada Bombasa. dhammaan hantida dadkan ay ku leeyihiin Mareykanka hadiiba ay jirto ayaa la xanibay. dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale liiska madow ku dartay hay'adda Al-Xamrameyn ee fadhigeedu yahay magaalada Gaarisa. markaana daawadayaal warkii dibadda, Iiraan ayaa sii deysatay markab ay leedahay dowladda UK. markabka Stena Brown oo sitay caalanka Britain ayaa ugu dambeyn ka soo dhaqaaqay magaalada dekedda leh ee Bandar Abbas ee dalka Iiraan kadib 2 bil oo ay gacanta ku hayeen ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan. markabkan ay ciidamada Iiraan ku qabteen biyaha marinka caalamiga ah ee Hormuz kadib markay Iiraan ku eedeysay inuu ku soo xadgudbay biyaheeda. qabashada Iiraan ee markabkan ayaa timid kadib 2 toddobaad markii ciidamada ilaalada UK ay jasiiradda Green ku qabteen markab Iiraan ay leedahay oo lagu eedeeyay shidaal sharci darro u siday dowladda Suuriya, balse markabka Iiraan ayaa ugu dambeyn la sii daayay bishii ina soo dhaaftay Agoosto. mas'uuliyiinta Iiraan ayaa dhankooda sheegay maalmo ka hor in sida ugu dhaqsiyaha badan u sii deyn doonaan markabkan sita caalanka Britain balse asal ahaan laga leeyahay dalka Sweden. daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen Galcad Media. haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawade subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta aan channelkan soo gelino. galcad media news. galcad media news.